كو ما هذاك عاد ما مقلوس هذا إن داوديال إسكول بوليسية أي برامجية ذكي ما نيا يعني هو قد جرنا إن إلى طبعا قدي أي لوقي بيه إرجدا أنصحنا سد دستور كصومالي قالك السنة موضوع إن كجرا دستور كصومالي أي كدو دي سي هذا بقى موضوع إذا سي أن واحد بدن وجانو داودياش أنا مركز أي ولا صعدان أي أقول تلاقي لهم برامجيا إن موضوع كستوحى وكهلا يسجع راء ولا فكرنا برامج قصة وإن كي معناه إن إسكول بوليسية هذا بقى إن guddiyadaas waxaa ka mid ah guddiyada madaxa bannaan iyo shaqaalaha rayidka ah arrintaas ayaan sharixi doonaa waana qodobka sideedaad ee mawduucyada la qaybiyey waxaa la qaybgalaya barnaamijka dahabo suuso maxamuud iyo doctoresa waa doctor siyaad maxamed mursal iyo cadar cali maxamuud mudanayaal ugu horeyn kusoo dhawaada barnaamijkan marka xigta waxaan jeclahay mawduuca ah guddiyada madaxa bannaan iyo shaqaalaha بسم الله الرحمن الرحيم عطب كتبانات فرقدي سدا كوميشنك جوديga madaxa banaan madax banaan dastuurka casriga ah waxa xambaarsan yahay commission madax banaan dastuurka ku meel gaarka ah wuxuu sameynayaa 9 commission iyo xafiis loo ergoodo commissionka mid kasta oo ka mid ah commissionka iyo loo ergoodaha wuxuuna dhowrayaa ilaalinayaa dastuurka iyo dimuqraadiyadda si uu u xaqiijiyo madaxtinimada dhab ah oo commissionka dastuurka wuxuu dhigaya in loo sinaado madax gaar ah ee miisaaniyadda dalka waxaa loo ku jira dastuur qodobo difaacaya ilaalinayo dahab adigoo raalaya waan gartay adigoo yani si gaar ah u akhrin dastuurka siduu u qorayo laakiin sharaxaad guud inaad nag wallaahi yani wax mawduuc ka hadlayo okay doctor أنا أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم هرتا مادة ومادة مهم لكن أنت عن فهمنا هاي كعصب عالم كتدحات مادة كعصب ويا حقيقة دينا ما لها عالم كتدحات أو بالي إلا الدقيقة ما يكمل هاي مقنعش هذا مركز جدية مدح بنان رنتي وحكم ذاك صراحة جدية أديك كسركا جدية حقوق إنسانك guddiga maxaan ku raahdaa adeega baarlamaanka guddiga adeega shaqaalaha